nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira xadiid xasan culimmadu ay ku tilmaamayaan ducaa suuqa xadiidkan sheegaya waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka subaxii suuqa markuu gelayo yidhaahda laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir yidhaahda waxaa loo qoraa buu nabigu yidhi alfa xasana waxaa laga masaxaa alfa sayi'a alfiga ma taqaani luqada carbeed waxaan hadda milyuunka la yidhahdaa kuma jirin waa kun lagu dhuftay waa maxay waa 1 milyan hal duco oo sadar ka yarba hadaad akhrido kun dambina laga masaxaya waa 1 milyan oo dambina laga masaxaya 1 milyan oo ajarna aad leedahay laakiin waxay culimadu yiraahdaan waa waqtul ghafla oo dadku ma haleelo dukaanka yaa rasaaq yaa fataahdu bilaabah guri umma bilaabma rabbi ba dadku inta badan waa waqtiyada ilaabaan laakiin suuqa markaad galaysa hadaad ku bilowdo wuxuu nabigu tilmaamaya waxa kan awqaatil ghafla nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya cibaadada dadku ay la yimaadaan waqtul harj aw waqtul fitna waqtiga dilka iyo dhacaya boob iyo dhibaatooyinku jiraan qofka cibaadaysta waa ka hijratin ilayya nabigu hijra aniga layso hijrado kale wal hijratu tajubu ma qablaha di xadiiskii al-islaam yajubu ma qabla hijraduna sidoo kale yana waa tirtirtaa hijra nabi maxamed aad u haajirtay bay la mid tahay baa la leeyahay waqtiga fitanka iyo imtixaanku jiraan hadaad adigu cibaadada badsato bal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya salaad bayna u fadli badan tahay marka faralka laga yimaado tal tukada waa naasu niyaam dadku markay hurdaan hadaad adigu kacdo habeenkii markay dadku hurdaan hadaad adigu salaad u kacdo fariidada shanta kadib waa ta u fadli badan in la tukado idan waxaynu u baahanay dhikriga iyo ducaaga iyo rabbi subxaanahu wa ta'ala xasuustiisa inaynu in badan badino oo in badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xidhanno